السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي kusoo dhawaada muuqaal cusub waa walaalkiin Cabdirasaaq Muhaajin muuqaalkan waxaan idinkula wadaagayaa sida ugu fudud ee loo kasbado qulubta dadka oo dhan ama ugu yaraan dadka aad sida gaarka ah u doonayso in ay ku jeclaadaan waxaanu noolnahay waqti aad u adag dadkuna ay isnaceen adkaatayna in aad qof soo jiidato isla markaana la kala garan waayay saaxiibka dhabta ah iyo midka beenta ah ka bini aadan ahaan waxyaabaha nafteennu ay rabto amaba ay u baahan tahay waxaa ka mid ah in dadku ayna jeclaadaan nala ammaano welina nala mahdiyo ugu yaraan baahidaas waan u badannahay haddii aanan ka wada sinayn dabcan in lagu jeclaado waxay qayb weyn ka noqonaysaa inaad hesho kalsooni buuran naftaadana ku qanacdo iyo inaad guul gaarto isla markaana aad ka mir dhaliso hiigsiga iyo himilada fog ee aad leedahay daba qodobadan aan kula wadaagi doono ka mid dhig caadooyinkaada dabeecadaada iyo nolol maalmeedkaada si aad u hanato qulubta dadka noqotana qof aad loo jecel yahay waayahay qodobka koobaad noqo qof alle ka cabsi badan maxaa yeelay ilaahay agtiisa waxa uu karaamo badan dadka ilaahay ugu cabsi og haddii aad ilaahay agtiisa ka tahay qof karaamaysan dadkana waa ay ku jeclaanayaan qodobka labaad dadka xoolahooda u nabadgeli kuwaadana wax ka sii yacni noqo qof deeqsi ah aadna u karaamo badan soomaalidu waxay ku maamaadaa bugto badan iyo baahi badan dadka ayaa kugu naca dabcan qaybta dambe ayaa naga qusaysa maamahdan haddii qofkaani ku ogyahay inaadan waxba weydiisanayn bilcagsi aad diyaar u tahay inaad waxaad haysato aad wax ka siiso marnabo kaama fogaan doono taleefankaadana 10 ilbiriqsi ka badan ma dhici doono sidoo kale mar waliba oo fursaddu kuu saamaxdo qofka aad rabto inaad qalbigiisa hanato u soo iibi hadiyad aad is leedahay wuu ka heli karaa muhiim maahan inay qaali noqoto laakiin waa muhiim inay noqoto hadiyad qofkaasi uu xiisayn karo marna hadiyadu yaraysi ma lahan rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri tahaddu tahabbu wax isku hadiyeeya aad jeclaataane yani hadiyadu waxay kamid tahay waxyaabaha la isku jeclaado qodobka saddexaad noqo qof dadka amaana maxaa yeelay dadku waa ay jecel yihiin amaanta aad ayayna uga helaan la joogga dadka wanaagooda ka hadla markay joogaan iyo markay maqan yihiinba bal adiguba isweydii keebaad jeceshahay asxaabtaada midka ku ammaana iyo kan waqti waliba ceebahaada sheega aad ayaa loo qadariyaa saaxiibka ceebahaada astura waa dabeecad la wada mahdiyey dabeecad ka dhigo inaad dadka ammaanto karaamayso wanaagoodana aad ka sheekayso kamana hadlaa inaad dadka aad ka waasho ama aad jabad ka tuurto keliya qofku wixii uu mudan yahay oo wanaagii ammaan ah inaad ku tilmaamto ayaan ka hadlayaa qodobka afaraad dadka ku garabsii wixii aad awoodo hiil iyo hoo intaba u gargaar walaalka midka dulmilowga ah iyo midka laga gardaran yahay intaba kan dulmilowga uu gargaar inaad celiso xaqana aad u sheegto midka la dulmiyeyna xaqiisa u soo dhici garabkiisana xooji dabeecad aad cajiib u ah kana mid ah sifaadka saaxiibka ama walaalka loogu jeclaan badan yahay lagu yaqaan dadka waxaa loogu jecel yahay kuwa garabka laga helo xilliyada adag sida tacsiyadaha xanuunada iyo musiibooyinka oo dhan saaxiibada dhabta ahna xilliyada dhibaatadu faraha ka baxdo ayay bannaanka isa soo dhigaan halka kuwa 10 wajiilayaasha ahna ay aayar u dhuuntaan xilliyada adag qodobka shanaad dadka aad rabto inaad qalbigooda hanato ugu wac magaca ama naanaysta ay ugu jecel yihiin ugu yaraan magacooda si qurxoon ugu dhawaaq bulshadeennu waxay ibtalo ku dhigtay magac ku cayaar iyo naanaysyo ibtalo ah sida dhegay lugay jiir calooley iyo wixii la mid ah adigu ka duunaaw dadkaas oo dhan dadkana ugu yeer magacyada iyo naanaysyaha ay aadka u jecel yihiin saaxiibayaal aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin muuqaalka xiga ayaan noo ballamay insha Allah